Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca adeegga cirka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan wanaagsan idil ahaantiin bakhyaarta hawada nagala socotay kuna soo dhawaada xilli tabinteena warka duhurnimo ee Shakaal TV oo idinkaga imanaya xarunta aan ku leenahay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. hadduu mawluhu qadarana waxa warka idinla socodsiin doono anigoo ah Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tudhi. qodobada warkeena duhurnimaad ku maqli doontaana waxaa kamid ah Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan oo kala saxiixday heshiis dhinaca gaadiidka cirka ah. dowladda Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis ay iskaga kaashanayaan adeegga gaadiidka cirka, baarista iyo badbaadinta. heshiiskan ayaa waxaa u saxeexay maareeyaha guud ee hay'adda duulista ee Itoobiya, Getachew Mengistu, halka uu u saxeexay madaxa hay'adda duulista hawada ee Koonfurta Suudaan, Kabtan Sobek David Dada. xafladda lagu kala saxeexday heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxa sare ee hay'adda duulista rayidka ah ee Koonfurta Suudaan, shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines Group, iyo hay'adaha duulista hawada ee Itoobiya. sidoo kale waxaa lagu sheegay in heshiiskani uu ka dhigi doono adeegga gaadiidka hawada ee ogolaanshaha ku-meel gaarka ah ee labada dal uu yahay mid joogto ah islamarkaana leh qaab sharci ah. wasaaradda gaadiidka iyo saadka ayaa sheegtay inay dhidibada u taagayso in adeegga gaadiidka cirka loo sifeeyo si waafaqsan halbeegyada iyo mabaadida hay'adaha duulista rayidka ah. wasiirku waxa uu shaaca ka qaaday in heshiiskaasi uu salka ku hayo qodobadii ka soo baxay go'aankii iyo Moscow ee ay ku ansixiyeen madaxda dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika oo ay ugu horeyso Itoobiya, kaas oo siinaya duulimaadyada duulimaadka. waxaa la tilmaamay in saxiixa heshiiska labada dal ee jaarka ah uu yahay mid muhiimad weyn u leh marka loo eego saamiga iyo doorbidka ay shirkadda Ethiopian Airlines ku leedahay suuqa Afrika iyo sidoo kale xiriirka Afrika iyo caalamka intiisa kale. waxaa la sheegay in diyaaradaha Ethiopian Airlines ay duulimaadyo joogto ah ku tegi doonto magaalada Jubba ee xarunta dalka Koonfurta Suudaan 2 jeer maalintii. maamulka duulista ee hawada ee labada dal ayaa isku afgartay in laga wada shaqeeyo arrimaha kala duwan. waxaa sidoo kale la xusay in hay'adaha ay saxeexaan heshiis is-afgarad ah oo ay isaga kaashanayaan goobidda iyo samata bixinta. madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo Mareykanka ka bilaabay olole ka dhan ah cunaqabataynta hubka. madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray waddanka Mareykanka ayaa bilaabay olole uu doonayo in Soomaaliya looga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran, waxaana kulamo la qaatay madax ka tirsan dowladda Mareykanka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo fadhiga Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doona Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay isagoo la wadaagaya dalalka xubnaha ka ah golaha xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. waxa uuna madaxweynuhu xoogga saarayaa sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka islamarkaana taageero ballaaran oo caalami ah looga heli lahaa. wejiga labaad ee dagaalka lagaga sifeynayo argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxtooyada ayaa intaasi ku dartay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sidoo kale la kulmi doono madaxda hay'adaha caalamiga ah kuwaas oo uu weydiisan doono taageero caalami ah. madaxtooyada ayaa intaasi ku dartay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sidoo kale la kulmi doono madaxda hay'adaha caalamiga ah kuwaas oo uu weydiisan doono taageero caalami ah. dadaalka dowladdu ay ku bixinayso xasilinta deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab iyo gaarsiinta adeegyo bulsho oo dhammaystiran. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa ku baaqay in wada hadal lagu dhameeyo dagaalkaas ka socda. وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan rabaa halkan inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada Garowe oo aynan ahayn meel looga bartay dhaqanka gacan ku hadalka ah. Puntland ay ahayd asaaskii dowladnimada Soomaaliya aan lagana sugaynin waqtigan maanta inay arrintaas oo kale dhacdo. waxaan leeyahay marka hore intii dhibatay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inta dhaawacantayna Allah ha u boogadhayo. intaa waxaan raacinayaa madaxweynaha
dowladda Puntland saaxiibka Siciid odayaasha dhaqanka culimaa diinka baarlamaanka waxgaradka inta federaalka ku jirtay inta kala dhammaan dadka reer Puntland inay ka shaqeeyaan samaha wada hadalka isafgaradka wada xaajoodka waxa maanta la isku qabanayaa iyadoo kolley bari la wada hadlayo la heshiinayo in dad badan ay dhintaan kadib la isu yimaado macna ma sameynayso waxaan saaxiibaday kulligood kula talinayaa dhaqankaani ma jirin hal la wada hadlo khasaaro inta haynaga ekaado hal la raadiyo si shuruud la'aan labada dhinacba waxaan rabaa inay u joojiyaan xabadda garaadadii shalay hawsha ku dhex jiray isimada reer Puntland iyo dhammaan qof kasta oo waxgarad arrintaas ay danqaysana waxaan kula dardaarmayaa qof waliba si voluntary oo una qof kale waxba ku xidhinin inuu arrintaa u galo daacad laga wada yahay xalkuna uu yahay inaan gacan laga wada hadlin ciddii hadal isu qabtaay miis wada hadallo oo furan baa jira lagu wada hadlo taasaan kula wada dardaarmayaa saaxiibaday kulligood qof walibana inuu qoriga dhigo xabadda la joojiyo maanta wax dhaqan Soomaalida ay ku fiirinaysa ma waa wax qariiba arrinta aad baan idin kula talinayaa u boorinayaa u dhiirigelinayaa qof kasta arrintaas ay mudan tahay inuu wax ka qaban karana waxaan rajaynayaa inuu la isugu yimaado la tago waxaana dadka ugu horeeya diyaar oo inay wax la leeyahay ka qaban karaan ay ka qabtaan tagaan wixii tale aan ka geysan karaan aan ka geysano sidaa daraadeed saaxiibada waxaan leeyahay kulligiin hal la joojiyo gacan ka hadalku intaa ku ekaado hal la wada hadlo khasaaro intaa ku ekaado geerid intaa ku ekaato burburkiyo barakaco intaa ku ekaadeen aad baad u mahadsantihiin waliba culimaa diinka iyo isimadaba waan ugu celcelinayaa iyo madaxda maamulkaba iyo inta kale wax garanaysa waa arrintaas in qof waliba inta kale gudboon uu ka galo qof walibana wax kasta oo xasaasiye keeni kara oo iska horimaad keeni kara oo dabkaas ku sii shidmi karaya inuu ka fogaado aad baad u mahadsantihiin billahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi waa tahay daawadayaal qodobkaasi waxa ugu dambeeyay warkii duhurnimo aad kala socoteen Shakaal TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Jigjiga warkana waxa idin la socodsiinay intuu awada ku jiray anigoo ah Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tudhi intaan warka xiga ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan bahda Shakaal TV oo idin leh sidaas iyo duhur wanaagsan